وبعد golayaasha baarlamaanka wasiirada madaxweynihii hore Hirshabeelle isimada iyo odayaasha dhaqanka bahda saxaafadda dhammaan marti sharafka saraakiisha ciidamada fanaaniinta iyo dhalinyarada social media fanaaniinta ugu dambeysay farxiyo dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan rabaa inaan aad uga mahad celiyo guddiga qabanqaabada xafladan quruxda badan ay soo qabanqaabiyeen sidaas oo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha waqti badan ku bixiyay meesha kulul soo maray duruufaha amni aan la wada soconno iyo baaritaanka aan la wada soconno kulaylka meesha aan ku jirno iyo sidaas oo kale waqtiga dheer iyo dadka aan haysan kuraasta waxaan rabaa aad aan uga mahad celiyo ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba taageerada aan kala harka lahayn ay muujiyeen oo runtii dhiirigelin in aan qarankan sidii hore aan ugu shaqeeyo ummadda Soomaaliyeedna dadaal ku bixiyo inay gaarto himilooyinka waaweyn ay higsanayso ugu horeyso inay helaan dawlad wanaagsan oo ay u siman yihiin awood u leh inay soo celiso amnigii iyo cadaaladii iyo wadajirkii ummadda Soomaaliyeed waxaan shaki iiga jirin in ay soo noqon doonto maalintaas aan wada higsanayno oo qiimaha iyo qaayaha leh dadka Soomaaliyeedna maanta ay u bislaadeen ka soo gudbeen caqabado iyo caraaqiil fara badan oo xilliyadii la soo dhaafa dhacaysay inaan u diyaar garoobayno doorasho 2022 ama 2022 qofba soo u yaqaano 15 bisha May laftigeeda ayaa calaamo wanaagsan aan wada ognahay waxa loo soo maray iyo duruufta loo soo maray iyo khataraha laga badbaaday waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala thumma cid kasta oo ka soo qayb qaadatay inay sida wax u socdaan ay noogu qabsoomaan ummadda Soomaaliyeed waxay la mid yihiin ummadaha kale waxay xaq u leeyihiin inay helaan dawlad ilaalisa masaalixdooda qaran ilaalisa magacooda iyo sharafkooda kuna hagta habka ugu wanaagsan ay u heli karaan nolol sharaf iyo qiimo leh mudanayaal iyo marweyn wacyiga dadka Soomaaliyeed oo runtii u muuqda maanta inuu u bisil yahay dawladnimo ayaan waxaan u arkaa inay ahaaday inay soo marto ummadda Soomaaliyeed duruufii ay soo martay xikmad rabbaani ah oo ummaddan u diyaarinaysay inay ka gudbaan caqabado fara badan oo fikir ah ama taariikhi ah oo dhexdooda ka jiray maantana xafladan waxay xaqiijinaysaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxa ay taageerayaan waa fikir waa aragti waa dawladnimo taas waa calaamo aad u wanaagsan amaanta lay amaanay ma amaani laakiin niyadda wanaagsan ee adiga qabtiin run Allah nooga dhigo insha Allah tabaaraka wa ta'ala
waxaan rabaa hadalka inta uu socday xigmad aan kala soo baxay oo i xasuusisay maalin maalmaha ka mid ah wax dhacay 2012 markii laga guuleystay hal su'aalaan isweydiiyey war waa soo dadaashay meel fiican aad wax keentay maxaa lagu dooro waayay jawaabtii caawa ay siiseen waana ku mahadsantihiin waxaan rabaa inaan sii yar caddeeyo qofka Soomaaliga haddii uu dadaalo qofka Soomaaliga ee madaxda haddii uu dadaalo oo uu la kulmo wixii uu filayo waxaan ahayn waxa ugu fiican natiijada inuu aqbalo waay maalin ayaa imaad doonta la abaal mariyo laakiin xukunka marka la isku dhajiyo waxau dhaxalsiyaa dadka magac xumo iyo burbur qaran taas marka waxaan rabaa inaan la wadaago siyaasiyiinta Soomaaliyeed dhammaantood in aan ku wada dadaalno wanaagga waxaana imaan doonta maalin la isku abaal mariyo dadka saaxiibada ah oo halkan ka hadlay oo runtii wanaagga ay igu tilmaamay waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahad celiyo runtii waxay igu tahay qaan xilka Soomaaliya haddii aan ku guuleysto keenaysa inaan ku dadaalo meesha hadda la joogo meel ka wanaagsan inaan gaarsiiyo biidni Illaahi tabaaraka wa tacaala waxaan u malaynaa caawa inaan hadal badan lagaga baahnayn mar kale waxaan rabaa xildhibaanada labada aqal inaan codsigay ugu celiyo inay doortaan codkooda ay siiyaan anna waxaan diyaar u ahay sida ugu wanaagsan inaan ku hogaamiyo dalkaas dadka waxgaradka ah ee Soomaaliyeedna talada aan ka qayb geliyo waxa ugu horeeyo oo samay doonana waa dib u heshiisiin dib u heshiisiintaas oo taaba doonta meelo kala duwan dadka Soomaaliya qabaa'il ay isu dirireen siyaasadana abuurtay dagaaladaas in siyaasaddu ay keento in laga gudbo arrintaas sidaas oo kale waxaan rabaa inaan idin ballan qaado walaalaheena reer Somaliland oo runtii dad qiimo badan ah qarankan midnimadiisa iyo xurnimadiisana door weyn ka ciyaaray tabtay dhibaato la wada og yahay wada hadalkii aan la bilaabnay inaan sida ugu dhaqsiyaha badan dib u soo celi doono waxaan aaminsanahay wadiiqada kaliya oo lagu xalli karo arrintaas inay tahay wada hadal qadiyadaasuna inay tahay qadiyad muhiim ah oo mudan in la dul istaago waxaan ugu hambaleynaynaa dadaalka ay sameeyeen nabadda iyo horumarka waxaan jecelnahay inaan ka wada hadalno sidii aan uga tali lahayn waxa danta u ah ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahad celiyo Sheekh Maxamuud Sheekh Cabdilbaari oo ah sheekh weyn oo runtii culimada Soomaaliyeed ka mid ah oo aan soo shaqaynay xilliyada ka mid ah waxaan rabaa inaan ka codsado culimada Soomaaliyeed iyo odayaasha halkan ka hadlay oo Sheekh Maxamuud uu ka mid yahay iyo Sultaan Cabdisalaam iyo Sultaan Abu Bakar wabarka inay ka qayb qaataan arrimahaas maxaa yeelay waxaan aaminsanahay culimada Soomaaliyeed dhaqanku inay u naqo karaan miftaax arrimaha cakiran ee labada dhinac waxaan rabaa inaan u soo laabto dawladnimada Soomaaliya waxaa asaas u naqo kara heshiis bulsho heshiis siyaasadeed oo laga miro dhaliyo oo dushiisa lagu dhiso hay'adihii qaranka hay'adihii u adeegi lahay bulshada
maadaama xilli badan la fadhiyey meeshuna ay kulushahay mar kale waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo kulaylka iyo waqtiga dheeraaday ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaan ka baryayaa inuu nagu guuliyo hadafka iyo ujeedooyinka aan leenahay ummaddeennana midnimo iyo sharafkeedii soo celiyo aad iyo aad aa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh